कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजर, अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजर। daawadayaal in badan ma doonayseen inaad wax ka ogaataan taariikh nololeedka Faaruun Dhawan. haddaba daawadayaal ku soo dhawaada taariikh nololeedka fariidka Bollywoodka Faaruun Dhawan. कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। Faaruun Dhawan fariidka Bollywoodka wuxuu dhashay 24 Abriil sanadkii 1989 wuxuuna ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. aabihiis waa David Dhawan waana director. Faaruun Dhawan sanadkii 2012 ayuu Bollywoodka ku soo biiray asagoo ku soo caan baxay filimkii Student of the Year oo ay la jilayeen jilayaasha ayakana markaas ku cusbaa Bollywoodka. Siddharth Malhotra iyo Alia Bhatt wuxuuna filimkan gaaray guul wacan. wixii markaas ka dambeeyay Faaruun Dhawan wadadiisa guusha ayuu iska sii watay, sidoo kalena wuxuu hoggaanka u qabtay jilayaasha ayakana markaas ku cusbaa Bollywoodka. Faaruun Dhawan waxaa ka weyn wiil lagu magacaabo Rohit Dhawan waana director. haddaba Faaruun waxbarashada heer sare ayuu ka gaaray maadaama dadaalkiisa sareeyay, wuxuuna ku takhasusay maamulka ganacsiga asagoo ka qaatay jaamacad ku taala dalka UK. Faaruun Dhawan markii uu Mumbai ku soo laabtay wuxuu qoyskiisa la wadaagay inuu jecel yahay film samaynta, sidoo kalena weligiis uu riyadan qalbiga ku hayn jiray maadaama inta badan uu tegi jiray goobaha aabihiis filimada ku samayn jiray. Faaruun Dhawan oo wiil furfuran ah wuxuu gacan ka helay filim sameeyaha caanka ah Karan Johar, wuxuuna director caawiye ka ahay filimkii My Name is Khan oo soo baxay sanadkii 2010. filimkan waxaa lahaay filim sameeyaha weyn Karan Johar. Faaruun Dhawan ayaa waaya aragnimo iyo aqoon dheeri ah ka helay shaqadii uu filimkii My Name is Khan, wuxuuna bilaabay isku diyaarintii filimkii Student of the Year. Faaruun Dhawan waxaa filimkii Student of the Year u sameeyay Karan Johar. Faaruun Dhawan si weyn ayaa loogu amaanay filimkii koowaad qaabjeliinkiisii iyo sidii uu daciifnimada u muujiyay qaybtii dambo, wuxuuna filimkan Student of the Year sameeyay ganacsi weyn. दोस्ती करने की गलती तो कर ली है मैंने, तो दुश्मनी करने का मौका भी नहीं जाने दूंगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं जीतूंगा। मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आ रही है और मेरे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता। Faaruun Dhawan sanadkii 2013 wax filim ah ma sameynin, wuxuuna sanadkii 2014 la yimid 2 filim asagoo xiiso weyn loo qabay aragtidiisa. wuxuuna sanadkii 2014 la yimid filimkii aabihiis David Dhawan uu sameeyay Men Tera Hero, wuxuuna filimkan gaaray guul weyn. तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। Faaruun ayaa sii adkaystay awoodtiisa uu gudaha Hindiya ku leeyahay. Faaruun iyo fariidnimadiisa waxaa la isla arkay markii filimkii super hiitka weyn noqday uu sameeyay
Hambate Sharma Ki Dulhaniya waxaana filimkan atiriisha ka ahayd Alia Bhatt. Dhawan asagoo dhalinyar ayuu aqbalay samaynta filimkii Badlabuur. Faruun iyo qaabjiliinka uu filimka Badlabuur ku soo bandhigay wuxuu noqday mid kalaasig ah. weliba dadka filimada ka faaloodo waxay aad ugu ammaaneen xiddigan kartida uu ku aqbalay samaynta doorkan. sidoo kalena Badlabuur wuxuu noqday mid dhammaystiran. daawadayaal waxaa kaloona ka xasuusin ah in Badlabuur uu Faruun Dhawan ka caawiyey in uu u tartamo atooraha ugu wanaagsan gudaha Hindiya ee bixisa shirkadda Filmfare Awards sanadkii 2015. Faruun Dhawan ayaa sanadkii 2015 la yimid filimkii xigay ee daansiga ahaa. sidoo kalena hid dhammaystiran ayuu noqday filimkan. filimka ABCD2 waxaa atiriisha ka ahayd Shraddha Kapoor waxaana aad looga helay daansiga uu Faruun filimkan ku soo bandhigay. sidoo kalena ABCD2 wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay ee xiddigan hogaamiye ka yahay kaasi oo 100 karoor ka badan gudaha Hindiya ka soo xareeyo. dhamaadkii 2015 wuxuu Faruun la yimid filimkii Dilwala oo ay la jilayeen Shah Rukh Khan iyo Kajal iyo Kriti Sanon. Dilwala wuxuu ahaa mashruuc weyn balse guul dhexdhexaad ah ayuu gaaray mana noqon sidii laga filayay. Faruun waxaa bishii Juulaay dhamaadkeeda 2016 u soo baxay filim action ah waana filimkii Tashoom ee wada jilayeen John Abraham waxaana director ka ahay Rohit Dhawan. Rohit Dhawan waana Faruun Dhawan walaalkiiska weyn. sidoo kalena waxaa laadir ka ahay Akshay Khanna ama wiilka Mastana. sidoo kalena waxaa muuqaal yar ku lahay filimkan superstar Akshay Kumar ama Master Bond. I think he knows something. मार दे डुबकी. कपड़े उतार के मेरा पूल गंदा हो जाएगा. You too, little boy. I'm not a little boy. You are my little boy. Come on, both of you. सॉरी मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े. सॉरी लेकिन जल्दी मैं तेरा मुंह तोड़ने वाला हूँ. Shots. I want to see in your shots. filimka Badrinath Ki Dulhaniya wuxuu soo baxay sanadkan aynu ku jirnay 2017 wuxuuna noqday hiidka ugu weyn sanadkan wuxuuna soo xareeyay lacago fara badan. Faruun Dhawan awoodiisa ayuu banaanka soo dhigay waxayna dadka box office-ka ka faaloodo isku raaceen in superstar awood badan Bollywood-ka ka noqon doono Faruun Dhawan. गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गई आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई हाय मैं मर गई सूली पे चढ़ गई नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया. Faruun Dhawan mashruuca ugu weyn ee sanadkan u diyaarsan ayaa ah filimka Judwa qaybtiisa labaad asagoo ka shan doono kabihii uu Salman Khan iska siibay 19 sano ka hor maadaama filimkan qaybtiisii koowaad Salman Khan oo laba weji ku sameeyay sanadkii 1997. Judwa 2 waxaa director ka ah Faruun Dhawan aabihiis David Dhawan. sidoo kalena Faruun laba weji ayuu ku matali doonaa filimkan waxaana la taaban doonaa 29 September
ee sanadkanaynu ku jirno daawadeel kusoo dhawaada faaruun dhaban iyo noloshiisa gaarka ah. Xiddigan markii uu Bollywoodka ku soo biiray waxaa lagu xaman jiray in Alia Bhatt xiriir hoose kala dhexeeyay maadaama ay meel walba isku raaci jireen, balse warkan xan ma uusan dhaafin wuxuuna iska noqday sheeko iska dhammaatay. haatana waxaa la xaqiijiyey Faaruun uu saaxiib leeyahay gabadha quruxda badan ee lagu magacaabo Natasha Dalal iyo Faaruun Dhaban ayaa la sheegay in haatan aad iskugu fiican yihiin maadaama labadan lamaane goob walba lagu arko ayagoo isla socdaan. Faaruun Dhaban ayaa sheegay in uu guur diyaar u yahay, asagoo sheegay in shaqadiisa Bollywoodka uu sii wadan doono. midaasna waxay ka dhigan tahay in dhawaanaha la arki doono Faaruun Dhaban iyo Natasha Dalal oo wada aqal galeen. daawadayaal taariikh nololeedka Faaruun Dhaban waana intaas. waxaan ila socodsiinayay anigoo ah Cabdicasiis Cabdulla Cabdicasiis Nadara.